بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع لما ولا نوين سلامين ودرسي تاريخ أها waxay noo soo joogtay rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo amar lagu bixiyay inuu islaamku kor la jahro oo kor u qaado marka maxaa dhacday at-tasaadum isku dhac xoog leh oo ay muslimiinta iyo nabiga alayhi salaam iyo quraysh oo markaa talinaysay sababta awood baa taagneed awoodan soo bilowday waxay u arkeen caqabad inay ku tahay maxay ahayd maamulkoodii waxoodii inuu wareegsaday oo rasuulku maxay ahayd uu noqday nabi maxay ahayd markaa waxay bilaabeen inay nabiga ka hortagaan oo shir degdeg lagu dhawaaqay in rasuulka ay sallallahu iyo saxaabada asaaliib kala duwan lagula dagaalamo isluubkii koowaad kow ka bilowda marka lagula dagaalamo wuxuu noqday in qof kasta oo muslim oo soo islaamo nabiga raaca in la cadaabo la garaaco la jirdilo maxay ahayd ilaa uu dhaho uu ka noqdo ilaa diinta uu ka noqdo marka isluub irtihaad bareeshar cadaadis in la saaro qof kasta oo soo islaamo qoyskii marka ilaa maxay familkan waxaa islaamay aabihii hooyadii aan islaamay ama hooyadii islaamta aabihii baan islaamay ama wiilish ilmihii islaamay marka familka dhexdiisa hataa maxay ahayd in la kala boodo oo dadkii qaarna ay nabiga raacaan qaarna ay kasoo horjeestaan oo ayaga dhexda famil kasta waxaa la dhaban qofkii islaamay inta qofkaan islaamay islaamka intii kale inta asaga familkiisa inuu cadaabo qofkii magaalada makan aysan qofna u deganayn oo qof marka hor jooga oo laga awood badan yahaana cadaabka asaga usii daraya markaa oo waxaa la sheegay bilaal oo maxay tahay nabiga sallallahu alayhi wasallam markii dambe aadinkiisa noqon doono oo xabashi ahaa markaa maka ku noolaa in aad maxay ahayd adoonna u ahaa nin quraysh ah ubay uu cadaab fara badan ula kulmay marka cadaabtii markay socon weysa haddana usluub kale isticmaaleen oo ah ishaaca propaganda in la dhaho saaxir waaye kaahin waaye iska ilaasha ka fogaada ha u dhawaana dagaalka xarbu nafsi ah in maxay ahayd nabiga haddana lagu dhaqmo oo qof kasta magaalada marka soo galo la yidhaha dagaha suuf gasho nin waala magaalada joogo dadka dhan kala tuuray oo ummadda dhan kala carartay iska ilaaliya la yihahdo marka isagana marka maxay rasuulkan islaamkan uu isku socdo marka tadriijiyan si qabow naxariis lagu maxay uu ku faafay guri kasta uu galay tartiib u galay laakiin muslimiinta cadaadis xoog leh iyo barashar xoog leh uu saaray yahay hatta rasuul nafsu sallallahu alayhi wasallam la cadaab asoo salaada marka waajibin laba ragcad oo tukana xaramka dhexdiisa madaxiisa maxay tahay xoolaha markii la qalo wasaqda in la soo qaado korkiisa la saaray marka uu cadaadis fara badan uu la kulmay rasuulka sallallahu alayhi wasallam iyo saxaabadii usluubkii labaad wuxuu noqday in ishaaca lagu faafiyo asna waa socon waay markii cabaar la waday markii dambe waxay bilaabeen nabiga adeerkiisa Abu Talib oo shakhsiyad nabiga aad u garab istaagtay marka hore asay qofka soo barbaariyay ahaa aabiisku hooyo ahaa in loo soo dacwoodo yiraahdo Abu Talib qof aan jecelnahay tahay qof xurmo lahaa tahay nabiga sallallahu alayhi wasallam naga qabo nagala hadal rasuulka Abu Talib uu la hadlaa haddana ay kula hadlaan muddo markii asaas socoto markii dambe waxay hanti sheego gabar sheego mulki dowladnimo sheego waxaa naga jooji nabiga marka adeerkiis u sheegay markii saas arrintii loo soo bandhigay ehelkiina saas ku leeyahay qoraxda hadii gacanta inta la saaro dayaxan inta la saaro ma joojinaa arrintaa way soconaysaa ilaa ilaahay subhanahu wa ta'ala uu guuleysiyo oo risaaladiisa aan guddo marka cadaadiskaas faraha badan marka wuxuu socday ilaa sanadkii 5 hijriyada oo muslimiinta marka dhibaato fara badan ay kala kulmeen صح maxay ahto barashadkii quraysh kale islaamkana si tartiib u faafay marka oo qof mar soo islaamay ilaa markii dambe marka rasuulka sallallahu alayhi wasallam cadaadiskii markii loo adkeysan waayay saxaabada sanadkii afraad markii la maray saxaabada uu amar ku bixiyay in la hijroodo dhulka xabashida la aado marka dhulka xabashida u dhaweyd wuxuu maqlay suuqlay marka ganacsatada wareegi jirtay ayaa booska raadiyaha media ku jiray marka markuu qofka ganacsiga ama xag u safro wixii ma akhbaar meesha iska jira asaga keeni jira laga ogaan jiray dadka ay wareysan jireen rasuulka sallallahu alayhi wasallam tujaarta dhexdooda wuxuu ka ogaaday ganacsatada wuxuu ka ogaaday in dhulka xabashida uu ka taray boqor caadil ah oo dadka maxay ahayd agtiisa aan lagu dulmin rasuulka marka boqorka isagoo gaal u aaminay wiil saxaabadiina halkaas aad u dhahay halkaas aad u carara oo maxay ahayd intii cadaadiskan iyo dhibkan uu ka dhamaanay marka halkii saxaabada marka u hijrooday rasuulku marka waxa la weydiiyay waxa la sheegay muxuu u doortay rasuulka sallallahu alayhi wasallam dhulka xabashida wuxuu u doortay boqorkan caadilka ee meesha ka tarinay dhulka xabashida u dhawaa maka xiriir ganacsi iyo xiriir siyaasadeed buu kala dhaxeeyay iyo islaamka inuu meelaha maka ahayn uu galo uu aado oo boqoradii waqtiga jiray inay ogaadaan diintii nabigii dhinaa inuu soo baxay oo diin caalami inuu yahay diin carab ku kooban uusan ahayn saddexdaas qorshe oo rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu talgalay in maxay ahayd saxaabadiisu amar ku bixiyay inay aadaan dhulka xabashida koo waa inay meesha meel u dhow tahay labo in maxay ahayd xiriir uu kala dhaxeeyo oo boqor caadil meesha uu joogo saddex islaamku inuu diin caalamiya oo ummadda dhan basharka dhan loo soo diray inuu yahay oo isan khaas ku ahayn carabta ku ahayn marka hijriyada koowaad dad yaraa baxay 10 nin ama 12 nin la sheegay iyo laba gabdhood markay meesha tageen waa la sirmeena waxa la dhamaa carab dhan islaam quraysh dhan islaam soo noqda markay soo noqdeen arkeen barashadkii cadaabkii inuu meeshii sidiis yahay
mar labaad iyo haddana saxaabo badan oo 80 iyo dumar maxay 18 gaaray yaa baxay markaas halka ay xawshida tageen Quraysh markaa talo waa ku qaraaratay waxay amar ku bixiyeen 2 nin oo safiira in boqorka hadiyad loo geeyo si dadkaas loo soo celiyo boqorkii alaab iyo maxay taqbal qof diblomaasi ah loo diray Amr bin Aas iyo nin kaleento markaas hadiyado fiican qurux badan oo fiican boqorkiis loogu habeeyay yaa boqorkii loo tagay boqorkii markii loo tagay oo u sheegay arrinta jirto in dad ayaga ka soo fakada diinteena ka tagay adina diintaada aan soo gelin in dhulkaada soo galeen adiga ku soo magan galeen boqorkii wuxuu amar ku bixiyay shir degdeg ah madaxdii maxay baadariyaashii ku hareeraysan wuxuu yiri dadka la sheegay hala iigu yeero marka dadkii ama muslimiintii loo yeeray muslimiintu way shireen way tashteen waxay dhaheen qofkii noo hadli lahaa oo boqorka ku qancin lahaa islaamka marka waxay doorteen nabigeena adeerkiis Jacfar ibn Abi Talib oo nabiga maxay isku fahmi lahaayeen ayna u arkeen markaas inuu ayaga ugu aqoon badnaa uguna aftahansanaa asaga wuxuu u calaamad saareen inuu noqdo qofka wakiilka u hadlaaya inuu noqdo boqorkii markaa wuu wareystay wuxuu yiri marka saadare Amr bin Aas xataa kamuusan harin wuxuu laaluushiisii baadariyaashii wuxuu yiri ila shaqeeya sidii nimankan aan guriga ugu soo celin lahaa boqorka iyu gacan gelin lahaa markaas wuxuu dhahay wuu wareystay wuxuu yiri diinta alla imaadeen maxaa waayo dhahay oo ehelkiina kaga sheeganayaan markaas suuratu Daah iyo Maryam wuxuu yiri boqoro anaga dadka maxay gaalo mushrikiin diinlaawayaan ahayn qof aan naqaano oo ehelkeena oo nasabkeena oo firkeena faraceena ah yaa ilaahay naga soo dhaxbixiyay muxuu idin faraahu yiri maxay ahayd al-amr biwahyi ina ilaahay caabudno ina maxay ahayd shirki ka tagno maxay ahayd inuu janno jirto ina naar jirto ina dhimanayno ina maxay ahayd ilaahay noo soo bixina ina la xisaabinayo maxay wixii dhan u sheegay marka boqorku wuu fakaray wuxuu dareemay nabiga asana diinta nabi Ciise haystay masiix buu ahaa wuxuu ogaaday oo yaqiinsaday in diinta nabiga dhinaa inuu soo baxay markaas wax ma wadaa wixii nabiga lagu soo dejiyo wax ma ka haysaa markaas suuratu Maryam ku dul akhriyay marka boqorku waa ooyay halkaas ku islaamay marka Najaashi baa la dhihi jiray markuu islaamay marka talo waa ku qaraaratay nimanka diblomaasiyiinta Quraysh soo disatay markaas iska baxo yiri dadkan lama maxay tilidima gacan gelinaayo meeshooda aamin ku noqonayaan halkaas marka muslimiinta ilaa dhulka xabashida ay joogeen ilaa rasuulka Makka oo ka qaxay oo Madiina u wareegay oo islaamku u faafay kadib ay soo laabteen marka intaas markay dhacday marka sanadkii shanaad laba qofood oo culus soo islaamtay oo la yiraahdo Umar bin Khattab iyo Hamza oo nabiga adeerkiis ahaa waa marka islaamku kor u baxay Quraysh marka dabarjab weyn ku noqday intaas inuu marka waxyaabihii ka soo darsi karin wadada Soomaaliya